أديقو يسي إباتا وقوري مايو أذو فرحة قرشي وصلك كاباتين مايو قلبك أديقو يسي إباتا وقوري مايو أذو فرحة قرشي وصلك كاباتين مايو كواسي مايو سيفتم رانفير وكبريا ميشان اسكاغتك رانفير محيتا صوبتد اي فهمي لادا هينا ابيغا حتى اي ديباتا فر بدن هيستا صوبتد ugu kordhinaysa maxayta waqti walba dhibkiisa ma jeceshahay مسلسلكان waxa lagu turjumay Raja Studio مسلسلكان kuwa kale ku xiisay galiyada هي ما ركتها Raja Cable TV ka daawo gabadhaad wax ka sheegaysay ilaa hadda adiga ay ka fikiraysaa waliba madaxdeegeedu way ka tilaabsanaysaa go'aan walba qaldan oo qaadato ayadoo madax hoos geynaysa ay gabadhaada kugu qaadan jirtay sababta ma taqaanaa sababtoo ah gabadhan waa ay ku jeceshahay tarbiyada aad soo tarbiyeysay ilaa hadda ka goyla indhahaagana ilin uma rabto wax yar xitaa waxaanaad saan ka dhigaysa maxay yihiin ii sheeg sababta aad waxyaabahan ugu celinaysid waa maxay ilin waxaaba ku filan tarbiyadii aad yaraanteeda soo tarbiyaysay middaas ayay weli haysataa marnaba kaama soo horjeesato sidaasay awgeed ayaba xiriir qaldan dhexda uga soo gashay xiriir qaldan ayay dhexda kaga jirtaa weliba ayadoon u baahnayn ay haddana waajibaadka fulinaysaa sababtoo go'aankan adiga ayaa keenay waxaasoo idin aamus ranviir arrinka anigii familkeena ayay naga dhexaysaa adigana midaas lukumalid ma soo dhexgeli kartid bannaanka waa inaad ka ahaataa maya sohani arrinkan adiga keliga kuma khusayso gabar walba ayay khusaysaa oo aabbaheeda go'aan qaldan ka gaarayo kadibna noloshadii mustaqbalkeedaba ku cayaaray taas ayaan ka hadlayaa go'aankaaga zaadayaad ugu faantaa soo maahan waya noloshada raaxada maxaad u qabatay ii sheeg gabadhaada sohani waxaad u guurisay nin marnaba aan jeclayn aan ka fikirayn waxba aan haysan guri ma haysto lacag ma haysto nolosheedana ma kaafin karo ninka gabadhaada sohani aad u guurisay daqiiqad xitaa ma jeclaan keliya adiga ceebta ayaad ka carartay goobta nikaaxa ayadoo la jooga ayaa wiil meesha uu ka soo dhex baxay wuxuuna yidhi gabadhaada anigaa guursanaayo adiguna waad iska aamintay oo wanaag ayaad u malaynaysay sax laakiin waxaad ilowday ninkan inuu yahay ninkii gabadhaada ayadoo nafsadeeda halis ku jirta ka soo tagay ambalaaskan uga soo dhex tegay nolosheeda marnaba aanan ka fikirin waxyaabahaasoo idil ayaad ilowdu waan u guurisay ranviir هو المشهد وكنت مرة وصل لكن شخوالك جدا أي خوانيس marwa inta ayaan ku keenay waaw go'aan wanaagsan aad gaartay ranfiir waan ku baryaa wiilkayga halkaan iskaga tag xaaladdeennana noo ogolow inaan iskaga jirno meeshan waan ka tegayaa laakiin anigoon runta sheegin ma laga yaabo meeshan si fudud inaan uga tago si aadan dadweynaha ugu ceeboobin hortooda ayaad gabadhaada nin u guurisay ninkaasoo daqiiqad xitaa dhankiisa aysan farxad ka helin haddii aad isku dayda aniga inaad iga xinaajiso kama daalayo ugu aabbahaaga inaan wax sikina uma qaadanaysa weliba daqiiqadii ugu horraysa fiican mayaash ma wada qof bini'aadana qamri inaan cabsi haygu kalifin waa ku baryaa taas ma samayn kartid soo maaha okay anaa wax samaynaya asodogaygan waa markaas kadib laga yaabo inaad wax qabataaga bas waa ku baryaa aabbayga haween sharaftaada
farxaddaada dadnimadaada iyo dadweynaha hortooda inaada ku ciboon ay waxaan oo idinlu intaas waad arki weysay gabadhaada ninan jecleen ayaad ku darta hadda nolosheeda waad baabiisay sharaftaada inaysan lumin waad ku dadaashay gabadhaada mustaqbalkeedana waad ku cayartay laakiin inay faraxsan tahay in kale hal mar xitaa dib ma u raadisay hadda anigaa kuu sheegaya gabadhaada saxriir ayay ku nooshahay maalin u dhimanaysa musalsalkan waxaa lagu turjumay raja studio musalsalkan kuwo kaloo ku xiisa geliyada raja cable tv ka baahan aabo aabo ranfir adiga dartaada ayuu maanta gurigeena mugdi u yahay aaba waa ku barya hal mar oo keliya ay amar diyaar waxaan oo amarkaaga inaan fuliyo hadal haddaadana lagama yaabo inaan ka soo horjeesto waa ku barya aabo wax laydheh ma aragtayna iyadoo waxaan oo dhan ay dhaceen weli gabadhaadu way kaa fikiraysaa adigana dadweynaha ayaad ka fikiraysaa gabadhaada riyadii ugu weyn ay ku riyoon jirto oo ahaa ditooreysa inay noqoto adiga ayaa gacantaada ku burbur isla sidaasoo kale ayaad maanta samaynaysaa balse madax adeegaaga maanta halkan kama soconaayo aan arka bal suhaanii qofka meeshaan ku celinaayo suhaanii koleeshka waay aadaysaa ditooresana way noqonaysaa qof binaadan oo celi karana ma laha suhaani meelay aadaysa ma lahan soldaa suhaani iska fasax haa iska fasaxa baxdeen ha celinin gabadheeda iska fasaxa baxdeen
wax walboo dhibaato halkan ay ku soo gabagabowday gabar walboo dhibaatoonaysay maanta wixii ka horeeyey dhibaatadeedii halkan ay ku soo gabagabowday nolol farxad leh ayay gabdhaha ku noolaanayaan musalsalkan waxaa lagu turjumay raja studio musalsalkan kuwa kalo ku xiiseeya raja cable gabadheeda aad iyo aad ayaad u qurux badan tahay waadna mahadsantahay wiilkayga aanashan shaqo ayuu bilaabay maanta midasna adiga ayaan kaaga mahad celinayaa waddadan wanaagsanna wiilkayga adiga oo keliya ayaa tusay gabadheeda wiilkayga ayaan haystay shalay laakiin maanta adigaa nolosheenna ku soo bira adiga ayaana ku haystaa gabadheedii mid mala socotaane maanta macalmacaankan hal qof oo keliya ayaa u qalmo ranfiir eed macmacaankan sababteen u cunayna ii sheeg maanta wiilkayga aana shaqo ayuu helay ma og tahayne habaalin aad u wanaagsan hambalyan ku leeyahay maanta wiilkayga shaqo inuu helo adiga ayaa mas-uulka ah haddii aadan garab sii lahayn soo anii garabkeedan aad soo istaaginayn shaqo ma heli lahayn wiilkayga maanta wiilkayga waxaa tustay inuu mas-uul noqdo waxaas leeyahay sidaas darteed ayuuna shaqo u raadsaday maantana mas-uuliyadda wuu ka soo baxayaa haddii aan xaqiiqada ka hadlo adigaa mudan inaan kuu mahad celiyo haddii aad awood leedahay marka hore bax soo shaqayso markaad soo shaqaysato familkaaga aad kaafiso kadib ayaad mooto iibsan kartaa soo anina markaasi ku raacaysa dhalinyaro waa idin baryaa dagaalka halkaan nooga joojiya caayadaana iska daaya soo anii gabadheed ranfiir waa inaad raacdaada wiilkayga ranfiir mahadsanid mar kale ayaan kuu mahad celinayaa farxaddeyda maanta lama soo koobi karo inaad ducaysto muhiim waaye oo adiga sidaan maad tahay dadka hortooda waxaad isaga dhigtaa qof xun inaad tahay laakiin gadaashooda ayaad wanaag ka samaysaa shalay annaga waadna badbaadisay gurila'aan annagoo nagu dhici rabta ayaad gurigaagana dhex keensatay maantana hooyaasha ayaad ka farxisay wiilad nacabta hooyadiisa ayaad howl u qabata anna doqonaan ahay ka waran waxaan ku fikiraya waxyaabaan inaad u samaynayso si aad anigii iigu soo dhowaato ka waran ranfiir si aan kuugu soo dhowaaday qof halkan ku jiro inaan u dhowaado mabaahanba marka horaanbu u dhowaa qalbigaygaa taadiga katiinadda nikaaxa waad haysataa maalinkaad u baahtan waad ii wacan kartaa diyaar ayaanu ahay inaan kuu xiro dunidoo idinla waan uga soo horjeesanaya si aan katiinkaas kuugu xiro waa diyaar waxay noqotaba aniga arooskan beentaa shalay ma aaminsanin maantana ma aaminsanin adigana aniga keligee ayaa ku leh musalsalkan waxaa lagu turjumay raja studio musalsalkan kuwa kaloo ku xiiseeya raja cable tv ka daawa anigana adiga oo keliya ayaa ilay maanta farxaddayda lama soo koobi karo wiilkayga nin raga ayuu iska dhigay mas-uuliyadda saarneedna wuu ka soo cajiib soo ma ahan hadda maxay kula tahay adigoo qayaanoo leeyahay inaad farxad helay sidaa adiga sidaa doonto waad u hadli kartaa afkaaga ayaa qoyan laakiin aniga maanta waan faraxsanahay sababtoo ah wiilkayga shaqo ayuu helay mas-uuliyadda saarneedna wuu ka soo baxay wiilkaaga ayaana garab ku siiyey middaas ma sidaasaa lagama yaabo adiga marnaba inaad isbeddesho mar walbana sidaada oo keliya ayaad ahaanaysaa marka ugu horraysa ninkayga ayaa si sharci darro ah igala wareegtay
haddani ma waxaad rabtaa hadallada macmacaan adiga aad ku hadlayso wiilkayga inaad igala wareegto midaasne ma ahan midaan aniga kaa ogolaanayo maxaa kaloo adiga aad u baahan tahayne adiga si qaldan ayaad ii fahansan tahay maamta ranfiir waa wiil aad iyo aad u wanaagsan sidoo kalena wuu ku jecel yahay wiilkaaga waxaanan ogahay wiilkaaga inuusan ogolaanayn hal maalin xataa inay bes igu filan adiga kelmad damba afkaaga ha ka soo saarin ninkaygana shabaqaaga waad ku soo ridatay laakiin hadda wiilkayga inaad igala wareegto marnaba adiga kaama ogolaanayo ayaan ku dhahay aashaa aniga si fiican ayaan ula socdaa adiga iyo wiilkaaga gurigayga waxaad u imaadeen aniga booskayga inaad igala wareegtaan waxaadna u baahan tihiin wiilkayga xaqiisa inaad la wareegtaan laakiin aniga midaaseeto midaan idinka ogolaanayo maba ahan ha dhawaato ama ha dheeraato maalin un aniga gurigan waan kaa saarayaa midaaseetana waxaa loo baahan yahay maankaaga inaad ku hayso adiga iyo wiilkaaga foosho xumbo anigoo idinkalbakalbaynaya ayaan gurigaaneta laad idinkaga saari doonaa midaaseetana adiga ha iloobin hadalkayga ma fahantay dembi aanan lahayn inaad dusha iga saarto waa laga wanaagsan yahay walaashee haddii xishood yar oo kugu dambeeyo gurigayga inaad soo gasho ninkayga iyo weliba cunugayga inaad la wareegto horteedana ma sii taagnaateen aaba macaan adigii meeshaana maxaa qaldan wax walba soo ma wanaagsano horta ma fiican tahay gabarteen xaladhan ma jiifanin adigaana kaa fikiraayay su'aalaan ku weydinaa ranfiir waxyaabaha isku hadlaya rumiyaan ii sheeg ma warantidoo aaba yaqay ranfiir hadalkiisa maad ii soo rumaysatay ninkaas wuxuu rabu iskaga hadlaaya maskaxda ha ku haynin marka gabarteedan runtiinaan ogaadaan rabaa adi meeshaan ma ku faraxsanid miyaana anshina sii fiican ma kula dhaqmiyaa gabarteedii sheeg xafladan waa xafladda annaga arooskeena waxaan u baahanahay dadkan odhan inaad u ciyaarto haddii aad midas samayn weysidda waxaad iigu kalifaysaa aniga aabbahaga inaan wado wax walba inaan ogaadaan rabaa gabarteeda ii dhaara gabarteeda runtana ii sheeg aabo musalsalkan waxaa lagu turjumay manchester musalsalkan kuwa kaloo ku xisigeliya raja keebatiisa ka daawo adiga ma u baahan tahay aabbahaaga xurnimo in isku noolaado dadka agtoodana madaxiisa in iskor isku geeyo gabarteeda maanta waxaan kaaga baahanahay guurkan inaad aqbashid oo aabbahaaga ku dhaaradid aabo aabo macaan aabo maxaa samaynaysa aabo ku baryaa u kaada aabo sidaanaan samayn maxay tahay sababtaad isku dhaawacaysa aabo sababtan aan darteeda ayaama wax walba kuugu sheegi karin aabo hadda fiiri dhaawacayaad is soo gaarsiisay waxaana maan darteeda u dhacooyin adoogaana waa guulka resti bes wey way aabo sidaas aan dhihin waxaan oo dhan anaa ka dambeeyey aabo waxaa tahay aabbaha dunida ugu wanaagsan wakhti walbana waan kugu faanaa wax walba aad samaynaysa way saxayna aaba marnaba ma qaldantid gabarteeda been ay sheegin si aniga aan ku farxo ma waxal buu samey hoosaana runtaaba waxay tahay gabarteeda anoo adoogaadaan ahay ammaanta guul dareesti runta jirtaa waxay tahay ranfiil hadalkiisna saxan yahay intaa aniga dadweynaha sharafteedii mustaqbalkeygaan ilaashahay gabarteeda mustaqbalkeedaan ku waaye farxadaadana anaa ku ciyaari waa isiqaaba aniga musalsalkan waxaa lagu turjumay manchester musalsalkan iyo kuwo kaloo ku xiisegeliyaba aabo u fiican tahayna aabo waa ku baryaa sidan maxaad u samaynaysaa waa ku baryaa ka fikiri waxyaabahan oo dhan qofka markii hurdadiisa asiloo meeshii asaga iska soo bilaabay mar labaad waxaan loo baahan yahay meeshan iska bilaabo qisadan meeshay ka bilaabataya laga soo bilaabaa gabarteed anigana saasaan samaynaa
maanta adoogaa waxaas ka codsaa ina cafisa amay aab oo ku barya sidanaa sameen amay oo ku barya xaqiiqada dinkuu sheega waxaan rabaa xabsigan inan kaa xorey gabarteeda xiriirkan haddaadan ku faraxsanayn adiga maanta isla sacaddan xiriirkan iska ilow gabarteeda adoogaa ku dhaliyaa ku amroy gabarteeda sababtoo ah aniga dadweynaha waxay dhahayaan maka fikiraya haddana go'aankaagan qaadanayo haddiiba ay jiraan aniga qaf inaan ka fikiraayo owlaaddeeda waay ka xurow gabadheeda xiriirkan anigoo adoogaaga aan ku amraa gabarteeda xiriirkan haddaad ku faraxsanaynin ka xurow wax walbana iska ilow gabarteeda sidaan filaa ilaa hadda katiinkani kaaxa waad haysataa diyaar waxaan u ahay wakhti walbaad ii wacda inaan kuu xiro waxaan diyaar waa adiga dhartaa dunidoo idil inaan kaga soo horjeesto wakhti walba waan kuu xiri karaa